kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Bilan News kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno deegaanka Xariirada halkaasi oo ay isku horfadhiyaan ciidamada beelaha Gadabuursi iyo sidoo kale Ciise odayaasha dhaqanka ee Gadabuursi oo ku baaqay dagaal toos ah Somaliland oo ku fashilantay xakamaynta dagaalkaasi iyo sidoo kale labada maleeshi beeleed oo isu bursanaya isla markaana isku ruqaansaday intaynan u gadagelin warbixintan oo faahfaahsan marka hore soo dhawaada YouTube-kan subscribe dhaha muuqaalkan like saara inana la joogo ilaa ya dhamaadka muuqaalka si aad u ogaataan wararka ugu dambeeyay ee aan ka helayno deegaanka Xariirad oo ka tirsan gobolka Salale dhawaan laga jaray Awdal ee Somaliland ayaa waxa ay diriri ku dhaxmartay maleeshiya beeleedyo ka kala tirsan beelaha Gadabuursi iyo sidoo kale Ciise dagaalkan oo dhowrtii maalmood la soo dhaafayba sii jiitamayay ayaa yeelanaya wajiyo dhowr ah iyadoo dagaalo goos-goos ay dhaxmareen labada maleeshiya beeleed goobjoogayaal jooga deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaaladaasi ay sababeen khasaare dhimasho dhaawac leh walow ayna tirada xadidin haddana waxaa la sheegayaa in dhaawacu tiro beel yahay dagaalka oo maalnimadii shalay ahayd tiro ka badan 2 jeer ay ciidamadu iswajaheen ayaa haddana waxaa la sheegayaa inay mid ka mid ah maleeshiya beeleedyadii ay gacanta ku hayaan deegaanadii lagu diriray ciidamo ka yimid gobolka City ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo taabacsan beesha Ciise isla markaana ka dhashay ama ka tirsan beesha Ciise ayaa sidoo kale dagaalka yimiday iyagoo deegaanka soo gaaray si ay dirir toos ah ula galaan beesha Gadabuursi dagaalka oo sida la rumaysan yahay salka ku haya khilaafkii ka dhashay magaalada Saylac ee bandhiga buugga xeerka Ciise ayaan moodaa inuu marka ka dambeysay cirka isku sii shareerayo ilaa iyo hadda waxaa la rumaysan yahay in wax waan nabadeed ah ayna halkaasi ka dhicin oo lagu dhexdhexaadinayo beelaha halkaasi ku diriraya ee wadaaga ah wararka qaar waxa ay sheegayaan in gamco kale ay ku jiraan isla markaana dabada laga riixayo oo quwado kale ay meeshaasi isku tijaabinayaan ilxogaal ah ayaa xaqiijiyay in ay sidoo kale Itoobiya ku lug leedahay iyo Djibouti Somaliland ayaa dhankeeda ku fashilantay inay xakamayso dagaalka halkaasi ka socda ee ay isku dirirayaan beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega iyadoo marka ka dambaysa beeluhu ay isu adeegsanayaan hubab kala duwan waxaa sidoo kale aagaasi laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan iyo waan dagaal oo aan horey loo arag Somaliland ayaa ilaa hadda wax tallaabo oo cad dagaalkaasi ka qaadin waxaana la filayaa in weji ka duwan uu dagaalkaasi yeelan doono haddii ciidamada Somaliland ay si toos ah u soo galaan dagaalkaasi odayaasha dhaqanka ee beesha Gadabuursi oo ku shiray magaalada Boorama ayaa cilaamiyay dagaal iyagoo gebi ahaanba dirin wax waan nabadeed ah ama quseeya fariin nabadeed sidoo kale beesha Ciise ayaa iyadana la filayaa inay fariin midaasi la mid ah ay dhankooda hawada ka soo marin doonaan ismada dhaqanka ee ku shiray Boorama ayaa sheegay inayna suurtagal ahayn lana aqbali karin waxyaabaha ay sameynayaan beesha Ciise oo ay sheegeen inay gardarro iyo duulaan ku tahay dhulka ay leedahay beesha Gadabuursi dagaalka oo aan la ogeyn meesha uu ku dambeyn doono ayaa hadda waxaa ka dhashay barakac ballaaran oo ay dadka deegaanku sameynayaan iyagoo ka tallaabaya xuduudaha isla markaana naftooda badbaadsanaya ciidamada beeleedyada ah ee ku dagaalamaya deegaanka ayaa la filayaa inayna haddii ayna wax waan isu kala dhexgelin si toos ah isu farasaari doonaan halkaasina uu ka dhalan doono khasaarahan hadda la gaaray mid ka sii fara badan dagaalka oo ah kii ugu horeeyay noociisa ah ee sanadadan ka qarxa xuduudkaasi ayaan la ogeyn meesha uu ku dambeyn doono walow dadka qaarkood ay walaac xoogan ka muujiyeen halka uu khilaafkaasi gaari doono maadaama odayaashii dhaqanka ay fariimo colaadeed hawada isu marinayaan taasi oo cadeynaysa heerka khilaafku uu leeyahay iyo culeysyada saaran dadkaasi maadaama ayna helin wax waan ah ama nabadeyn ah oo dhaxmarta daawadayaal maxaa laga filayaa dagaalkani inuu ku dambeeyo Somaliland maxaa la gudboon odayaasha dhaqanka sidoo kale maxaase ka filaysaan dagaalkani meesha uu ku dambeyn doono
xogo badan oo ku saabsan dagaalkani kala socda channelka Bila News. Mahadsanidin.